mudane maaraye barasaabada kala duwan ee gobolka Salal iyo Awdal golayaasha deegaanka odayaasha deegaanka dhammaan hay'adaha iyo daneeyayaasha kale gaar ahaan hay'adda khayriga ah iyo tasaba engineering ee Itoobiya ka socota aad ayaan idin salaamayaa. waxaa sharaf weyn ah inaan maanta aan soo gaadho anoo shalay ka maqnaa waddanka degdegna idinku imaado hadda saan xidhitaanka idinla joogo. waddadan waxay muhiim u tahay dhaqaalaha waddanka. waa waddada labaad ee aan qabo inay ugu muhiimsan tahay waddanka. waddadaasoo isku xidhaysa Lawyacaddo ilaa Boorame Jabuuti laga galaysa. waddadaasoo meel muhiima ku taalla hadday noqoto waddamada dariska ah Itoobiya oo kale iyaduna ay qarka u saaran tahay. sidaa daraaddeed waddadu waa waddo muhiim u ah deegaanka oo dhan. waxaana muhiima hadday noqoto hay-adda waddooyinka iyo hadday noqoto dadka deegaanka iyo hadday noqoto daneeyaasha kaleba in waddada muhiimad weyn inoo leh isha lagu hayo. waxaa jirta waddo dhul ay marayso saamayntii waa la gabagabeeyey maanta lagu jiraa. maantana waad ogtihiin oo dee ilaa shalayto ayaad wadda falanqaynteedii waddada faa'iidada ku jirta wixii ka imaan kara khasaare. qolyaha deegaankana waxaan u sheegayaa markay wadda timaado oo waxa ugu muhiimsan weeye deegaanka lagu ilaawi karo waxaa weeye biyaha iyo waddadu waa labada meelood ugu muhiimsan. marka qolyaha deegaanka u ololeeya waxyaaba badan oo waddankeenna xaalufiyey ayaa jira hadday deegaanka ay xoog saarayaan laakiin waddo markay timaado iyo biyo soo saaris waa labada ugu muhiimsan weeye ee aan la eegin deegaanka iyo dhulka ay marayso. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadday noqoto shaqaalaha ardiyeeda hay-adaha kale ee dawliga ee ka soo qayb galay shirkan daneeyayaasha iyo dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. gaar ahaan waxaan marka ugu dambaysa salaamayaa shirkadda engineering ee Saba from Ethiopia. I would like to thank you very much. waxaan kaloo leeyahay shaqo wanaagsan baad haysaan halkaa ka sii wada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.